السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن إذلهم بداوديش هذا قيمها بدن ku xiran channelkayaga dayax films waxaan dilana soo dhawaada waxa caawa marti noogu ah dayax films oo fanaanka weynaa mulaxankii abwaankii Cabdilaahi Waabari يا هلا aan soo dhaweynaa mar labaad iyo mar saddexaad waana kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaligaadna siisay dayax films Cabdilaahi Waabari waxaad noo haysadan nahay bahda dayax films caawa aad iyo aad baad mahadsan tahay sida sharafta la igu soo dhaweysay iyo taytalada faraha badan la aan isleeyahay waa siisay malaha way rafra badan xamiistihii fanaanka abwaankii wixii culayska inta laga maqaad karo laakiin studio aan ku soo booqday dayax baan kooxdan iminka xagga dayax u socota aad iyo aad baan ugu dhawahay oo aan ku mahadnaqayaa markaa fadhigeen iyo kulankeena maxaa laga sugayaa waxa laga sugay waxda ku talagashay dayax films ee halkaayna soo fadhisay dayax films waxaan ugu talagalay horta xaqii fanka iyo heesaha ma aho iyagaba hayo barnaamijyada waday haday kamankii xasuusintiisii tahay iyo haday barnaamijyadii heesaha iyo majaajilada oo bariyahan ba aad u waday taasina waxay tilmaamaysaa in fankii dib loo soo noolaynayo oo iga hordhac fankuna mar haday cuudka noqoto iyo kamanka iyo qof cudkii oo isku soo baxsaday bariyaha playback baa la waday labadaas qofka waxay tilmaamaan fan nool bariyaha fankii uu si dhimanayay playback baa la waday heesihii marka qofka kamankii cuudkii oo aabihii muusigada dhaqanka inoo ahaa iyo qofka cudkiisa haday isku soo baxsadaan kulli noloshii fanka dib soo bilaamaysa taasi waa inta laakiin anigu waxaan wada sheeko aan isleeyahay waa sheekooyinka fanka uu ku dhex jira mahadooyinkii qisooyinkii aan wax ka qoray ama aan akhriyay oo qayb kamid ah oo kuwa jacaylka ah laakiin waa qiso jacayl oo hadana nacayb hoosta kaga jiro qisadaasi waxay ahayd qiso wadanka Yugoslavia ka dhacday Yugoslavia oo wadamada Yurub ku yaala waliba bariga Yurub ahaan jiray waxa dhacday nin iyo lamaanihiisii jacaylka aad soo jecel oo muddo 15 sanadood soo wada qaadanayeen nolol isqabeen ama qoladaanka gaalada qaar baa isqabitaan hooy yaqaanay la noolaado wadamadeena salaamkuna waxa yaqaanaa siga deelna isbeersado halka laakiin jacaylkoodu qaab kale ku bilaabmay marka anigu qisada waan akhriyay labada qof way wada noolaan way isqabeenba muddo ka badan 18 sanadood ku dhawaad ninku wuxuu ahaa engineer xagga electric ah gabadhna waxay ahayd macallimad dugsiga dhexe wax ka dhigta labadaas guri bay wada deganaayeen jacaylkoodu wuxuu ahaa mid isfahan badan ka dhaxeeyo way laba qof marka uu jacaylkoodu isfahan imaado waxay iimanaysaa in ay demarktay uu sii kordhayaga bariyaha kamid ah ayaa ninkii shaqo beela kulli shaqo la'aantuna mashquul badan bay leedahay بلا عمل بنقد gurigu fadhiista bala amalnimadiisi waxay ku kaliftay inuu gabadhii ku mashquulo iyo jacaylkiisa ku sii farabato wuxuu siray tolo hada gabadhu ka tagto aan noolaan meest noloshiisa wuxuu ku xiray gabadhii xaaskiisa wuxuu siray hada gabadhu ka tagto waa oxygentii noloshaada ma oxygentii ka goodayba oo qabarkeeda gelis wuxuu aaminay nolol noocaas hadii ka tagto in aanu noolaanaynin dabeedna wuxuu bilaabay inuu daba galo iskuulkiisa wixii tagtaa goor dambe saddexday ka soo baxdaa ma haday ka tagto iskaga tagto ma haday shaqada tagto ma way isagu deynta bad guriga jooga bil amal soo yid iskuul tagi mayso iskuulka ma ogolo ma si qarsoodi uu daba galay si uu ogaado waxba u sheego yiri gabadhu way ka tagaysaa haday ka tagtana aad dhimanaysa dabadeedna uu daba gal buu bilaabay wuxuu silcid bay la sheekaysataa xiriir bay leedahay wuxuun balbaad dabeedna uu daba galay dabeedna iskuulkii buu daaqada soo istaagi jiray sawiruu ka eegi jiray xilligan waa tan macallimiintu waqtiyada break galay ama nus saaca ay xiisada inta u dhaxaysa marka macallimiintu meel bay isugu yimaadaan wuxuu arkay gabadhiisii hadii jeer la qoslaysa macallin kale aad buu xanaaq wuxuu sirkaay qosolka la bilaawday bala shakiga gabadhii macallimiintu inta badan dadku meel ka wada shaqeey ciidan bay isfahantaa mid baa ka qoslin jiray markaasi ku dhawi dabeedna xilligii ayuu wuxuu bilaabay shaki weyn dabeedna wuxuu ka tagaysaa noolaan meeshii dhowr jeer oo dambe meelaha ay tagtayso maalintii dambe se go'aan buu gaaray
go'aanka uu gaaray wuxuu gabadhu yani sidan ku jiri maysido ninkaas la sheekaysataay haday ka tagno nolol kuma taale go'aan buu gaaray digsi weyn buu soo diyaar gareystay baradhadii basbaaskiisii buu diyaar gareystay wuxuu wax ku gogoyn lahaa gabadhii goordambe shaqadii ka timi uu qoslay waa soo dhaweeyay sida caadiga ahayd waxba mu dareensin dabeedna halkaasay sheekada horta ka qadhaaranaysa dabeedna mid dib ku biray gabadhii uu dhameeyay nafta u sidii islaamti ku sidii gabadhii dhameeyay dabeedna mid dib ku biray wuu qalay wuu gogooyay digsigiisii buu maalinba usladay walba u shiishay qaar uu shiishay cunaya saa nafti inta dabeedna intu baalcidii iyo timihii laftoodii ka mutay gabadhii wuu shiilay wuu dubtay wuu cunay u dhaadhiciyay calooshii ku riday marka wuxuu isleeyahay dad laqdo calooshaadan soo dhaafay maysan nafta ka bixinayso hadda calooshii ku riday waxa dib ku sheegay laakiin waxa sababta ku lif muddo kadib isagu telefoon buu diray ilmadii xaas ku sameeyay xaasku isagu dadka cunayo aad weeyaa timsaax dumuc baa la yiraahdaa dabeedna wuxuu sheegay baliiskii uu wargeliyay dadkii gabadhii baa iga maqan markuu dhameeyay hadda markuu dhameeyay dabeedna baliiskii meel walba ka baadhay waxay ka raadiyeen sidan aydi baa baadhay aydu dadka way urayaan guriyihii baa laga eegay wax laga eegay meel kastoo la isiraahdo qofka iyo intii ugu dambeysay dasma markaas warideedii baa gidaar walba la dhigay TV-yada waddanka aad baa loogu shaaciyay marka ay muddo ka soo la waayay qof binaadana calooshiisa ku jirta waana jacaylkiisii dabeedna ciidaba ismay oran gabadhii halkaas ku jirta muddo kadib kuwa baliiska ahi waxbay yara baaraan dadka waliba detectives kale ama baaxisiinta dabagalka sameeya shaqada yaqaan nin baliiska ka tagi waayay guriga sawirro ka soo qaaday uu bariga kamaradahan afka dhaadheer leh gabadha iskuulka ka sawir jiray sawirradii soo qaaday dabeedna wuxuu ku dhuu waxaan u malaynayaa ninkaas uu dabageli jiray waxaan soo waray sagaale maadaama meel kasta laga waayay wuxuu inta dooyay la qaatay webiyada dhexdooda iyo badaha laga eegay ninkaas gabadha isagu bay ku maqan tahay waa la qabtay waa loo yeeray waxa la yiri xaaji xaaskaagi aday ku maqan tahay lagu tumay xagaadkiisa uu siiradiisii intii hore laakiin markii dambe wuxuu yiri way ugu maqan tahay xagaad gelisay wuxuu yiri calooshayda markaasa maxkamad iyo wixii la soo taagay maxaa aad u disho wuxuu yiri waan jeclaa hadda jeceshahay maxaad u cunta wuxuu yiri waan jeclaa way ka tagaysaa aan isriyo dii kol oo aan nooshahay wiil calooshayda ku nooshahay deemanka qosolkeedu waan dareemayaa shirkeyga ku dhex jirtaa waa fitamiinki noloshayda xubnahayga ka mid tahay waxaan u leeyahay wali bay u dhex jirtaa dhibaatadii meel ay ma dhaafin ugu dhex jirtaa halkii qosolkeedu waan dareemayaa dhukashadeedii waan dareemayaa salaanteedii waan dareemayaa farxadeedii waan marka wuxuu waa qof iga mid ah jirkaygii ay ku jirtaa meel laakiin markii hore iga muruga badnaydo jacaylkeedu warwar badan igu hayo kay la qosashaba ama aad u eegtaban isla kanay maanta ka raacaysa marka warwar la'aan iminka way la seexataa way la joogtaa hilibkeedina waliba wuxuu yiri uu raacay hilibkeedina macaan badan buu lahaayo waslada kale ay ka macaanid bismillaah waayo hilib qeyr caadi ah oo jacaylkeedu darsi bismillaah marka qisada halka markay marayso ayaa waxaan soo xasuustay maadaama jacaylkaasu uu nacaybka cunitaanka intaa leeg dhalay ayaan oo rabay inuu midinta ku gogooyo iyo kariyo la qaba raadciyo ayaan dhankii fanka ka eego waxaan isiri waxay ku soo dhacay dhowr heesood marka maalintii abwaan daha cabdi aan abwaanka gudoomiyaha dayax ayaa isaguna hees dhunta laakiin ilkaha ka dhowray gabadhu sameeyay markaas qisadan xasuus marka bariga waxaan xasuusay sheekada qorayay heeso ay abwaanintii waaweynay ama fanaaniintu qaadaan dhuntaan ku marin lahaa dhulka kuma quureen hadaa tahay hunguru dhubuq dibadna waxa jira kuwa laftoodu waxay qofka jeclaan u dilayeen oo ku dhaadhicinayeen iyaga laftooda maxkamad waa laftoodu oo reeri qofkii aad jecleed markaad tiri dhulka cumuku beerku laabtaan mari karo dhuntaan ku marin la iyaga laftoodu maxkamadda ninka la taagay ay la dambi weeye maadaama ay dhahdeen qofkii aan jeclaa waan dilayaa oo waan dhaadhicin lahaa hunguru dhubuq baa tahay qof binaadano la dhaadhicinayana hawshiisu waa sheek halkaas un bay iska soo gelayaan marka de sheekooyinkaas u maarayay aad baad u mahadsantahay horta sheekadaas oo sheeko cajiib anigu horta caawa si walba aan la dhacay qosol iyo
naxdin wax walba isugu jirta naxdin way lahayd oo la isdhacay aad iyo aad baa mahadsantihiin sida fiican ay ku soo dhaweyseen stuudiyihiinan qiimaha iyo qaayaha cabdillaahi aad baan ugu mahadcelinaa sida quruxda badan oo barnaamijka noogala qayb qaatay sidoo kale waxaan idin sheegay daawadayaasha ku xiran dayax films inaanay saa ku soo dhaam afgoyn sheekooyinka cabdillaahi inoo hayay oo ay midka dambayso ka sii xiiso badan tahay aad iyo aadna waan idinkaga mahadcelinay idinka laftirkiina daawashadiina sidoo kale waxaan leeyahay ku xidhnaada dayax films